بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka Bashiir Beej qodobada wararkeena maanta aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweynaha Hirshabelle oo si kulul ugu hadlay bedel lagu dhameeyay deegaanka ka tirsan maamulka Hirshabelle isa dagaal oo ka taagan deegaanka ka tirsan gobolka Sool qoysas barakacayaal ah oo ciidamada liyo booliska ka soo barakacay oo soo gaaray gobolka Hiiraan xalinta beela ku dagaalamay deegaanka ka tirsan Puntland oo bilowday qoytii Yemeniyiin ah oo soo gaaray deegaanada maamulka Somaliland wasiirka amniga galmudug oo ka hadlay lacagaha la siinayo al-shabaab iyo arrimo kale qodobada dibadda wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladaha ku dhuftay Mareykanka iyo khasaaro ka dhashay Taliban oo gacanta ku dhigtay diyaarado fara badan iyo hub casri ah ay ka tageen ciidamada Mareykanka dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Ali Guudlaabe Xuseen ayaa si kulul waxa uu uga hadlay dadkii dhawaan lagu dilay deegaanka lagu magacaabo ka baxan leeyahay gobolka Hiiraan kuwaasoo dhammaantood shacabka Ali Guudlaabe ayaa marka hore taasi u diray qoysaskii iyo asxaabtii dadkaasi ka geeriyoodeen waxaana sidoo kale ka digay in colaadda u dhaxaysa labada beelood aanooyinka bilihii ugu dambeeyay dilalka ka dhacayay ay sii dheeraato waana hadalkiisa intaasi ku daray in maamulka Hirshabelle uu diyaar u yahay inuu gogol nabadeed u dhaxdhigo dhinacyada colaadda u dhaxaysa isagoo ugu baaqay inay wada hadal ku xaliyaan wixii markaa tabasho oo ka dhaxeeya labadaasi qabiil hadalkan ayaa madaxweynaha Hirshabelle Ali Guudlaabe Xuseen waxa uu sheegay xilay shalay oo dib ugu laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle dhanka kale haddii markaa aan fiirino xiisada dagaal ayaa ka taagan sida la sheegay deegaanka ka tirsan gobolka Sool waxaa markaa xiisad dagaal laga dareemayaa tuulada lagu magacaabo Fiinley oo dhaxaysa birta dheer iyo degmada Boocame ee gobolka Sool halkaasi oo shalay ay ku dagaalameen laba maleeshiyo beeleed dagaalka shalay ayaa dib markaa waxaa la sheegay daba socday iska horimaad kooban oo ka dhacay sida la sheegay miyiga Balacad oo ku dhow Asaaxmigaag halkaasi oo ay ku dagaalameen laba ciidan oo sahan ah waxaana dagaalkaasi ku geeriyooday hal ruux wararka laga helayo ayaa waxa markaa ay sheegayaan in laga dareemayo xiisad dagaal oo u dhaxaysa labadii dhinac ee dagaalamay kuwaasoo weli goobta lagu dagaalamay isku hor fadhiya dadka tuulada lagu magacaabo Fiinland ee u dhaxaysa birta dheer iyo degmada Boocame ayaa waxa ay sheegayaan inay dareemayaan cabsi ballaaran oo ku aadan sida ay sheegeen dushooda in lagu dagaalamo mar kale wararka laga helayo warbaahinta helaysa ayaa waxa ay sheegayaan in maamulka Puntland oo wada dadaalo ku aadan sidii loo kala dhaxgali lahaa dagaalka oo mid soo laabta noqday waxaana la filayaa in ciidamada la kala dhaxdhigo ciidamo kale oo markaa maamulka Puntland ka tirsan dhanka kale haddii markaa aan fiirino qoysas ayaa waxaa la sheegay inay soo barakaceen soo gaareen magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan maamulka degmada Feerfeer ee gobolka Hiiraan ayaa soo dhaweeyay sida la sheegay dadkaasi isla markaana dib u dejin markaa u sameeyay waxaa la sheegay qoysas ciidamada liyo booliska ay ka soo barakaceen deegaano iyo degmooyin ka mid ah gobolka Shabeellada ayaa dowlad deegaanka Soomaalida sida la sheegay qoysaskan ayaa waxaa la sheegay inay qaarkood inay u dulqaadan waayeen sida la sheegay beesiga salka ku haya hanooyin qabiil iyo dhibaatooyin kale oo ay sheegeen in markaas sida ay sheegeen shaarka dowladda loogu geystay sidoo kale waxa ay sheegayaan in ciidamada liyo boolis ee dowlad deegaanka Soomaalida ay kala kulmeen dhibaatooyin daran taasi oo keentay inay ka soo barakacaan deegaanadooda qoysaskan ka soo barakacay deegaano ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay wajahayaan xaalado deganaansho la'aan waxaana ay sheegayaan in weli dhibaatooyin soo gaareen aysan iloobi karin deegaano ka tirsan maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka jira dagaalo salka ku haya colaado beeleedyo kuwaasoo dad ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen halka boqolaal qoysna ay ka barakaceen dhanka kale haddii markaa aan fiirino maamulka Puntland ayaa waxaa la sheegayaa xalinta beelo ku dagaalamay deegaano ka tirsan Puntland inay bilaabeen wararka aan ka helayno gobolka Nugaal ayaa waxa ay sheegayaan in maanta ay socdaan dadaalo xoog leh
oo lagu xalinayo dagaalo beeleed khasaare culus ee geystay oo shalay ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Saaxmagaad oo markaa dhaca galbeedka gobolka Nugaal. dagaalka ka dhacay galikii dambe shalay ayaa waxaa markaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac leh oo soo kala gaaray dhinacyada maleeshiyaadka labada beelood. beelahan ayaa sheegaya markaa la sheegay inay horay markaa u dirireen dagaalna uu ku dhex maray dhul markaa la sheegay, waxaana markaa hadda socda dadaalo nabadeed oo lagu doonayo in lagu soo afjaro isku dhacyada labada beelood. nabadoon khaliif oo cali oo ka mid ah guddiga maamulka Puntland uu u xil saaray nabadda beelahaasi inuu dhexdhexaadiyo ayaa markaa sheegay in ay ku guda jiraan xalinta beelahaasi. dhanka kale haddii aan fiirino qaxooti Yemeniyiin ayaa markaa soo gaaray maamulka Somaliland. saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa deegaanada Somaliland soo gaaray qaxooti fara badan oo Yemeniyiin kuwaasoo markaba ku soo dejiyay dekedda magaalada Berbera. qaxootigan oo iskugu jira dad waaweyn iyo caruur ayaa tiro ahaan waxa ay gaarayaan ilaa 177 ruux, waxaana magaalada Berbera ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan Somaliland. qaxootigan Yemeniyiinta ayaa waxa ay markaa ka soo carareen colaadaha dabadheeraaday ee ka socda dalka Yemen, taasoo u dhexeeya xulafada Sacuudiga oo kacayo iyo kooxda Xuutiyiinta. boqolaal qaxooti Yemeniyiin ayaa la sheegay inay haatan ku sugan yihiin Soomaaliya, kuwaasoo sanadihii la soo dhaafay markaa la sheegay siyaabo kala duwan u yimid magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Berbero. dhanka kale haddii aan fiirino wasiirka amniga maamulka Galmudug ayaa markaa wuxuu ka hadlay lacagaha la siiyo al-shabaab iyo sidoo kale waxyaabo kale. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macali Fiqi ayaa sheegay in Galmudug iyo Puntland ay iska kaashan doonaan sidii loo soo afjari lahaa xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab ee ku sugan deegaano ka tirsan koonfurta Galmudug. waxaa markaa hadalkaani oo intaas hadalkiisa ku daray in ciidamada Puntland kuwiya iyo sidoo kale kuwa Galmudug ay ka go'an tahay sidii loola dagaalami lahaa al-shabaab, waxaana si cad u sheegay inay yaraatay awoodda al-shabaab sidoo hadalka u dhigay. wasiir Fiqi waxa uu sheegay in dagaalkii deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Mudug ka dhacay al-shabaab looga dilay sida uu sheegay in ka badan 250 dagaalamayaal. waxaana markaa qiray inay dhawaanaha al-shabaab qabsadeen gaadiid sida uu markaa hadalka u dhigay. dhinaca kale wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macali Fiqi ayaa uga digay dadka lacagaha siiya al-shabaab, waxaana sheegay in dadkaasi lala xisaabtami doono haddii ay lacag bixiyaan. dhanka kale haddii markaa aan fiirino qodobada dibadda ayaa markaa eegi doona. duufaano ayaa la sheegay inay ku dhufteen Mareykanka. magaalada New Orleans ee dalka Mareykanka ayaa waxaa markaa la sheegay inay ka maqan tahay korontada. waxaa shaqeynaya sida la sheegay matoorada oo kaliya, iyadoo duufaanta lagu magacdaray IDA ay ku dhufatay gobolka lagu magacaabo Louisiana. duufaanta lagu magacdaray IDA ayaa waxa ay ka dhashatay markaa sida la sheegay dabaylo xoogan oo xawaaro dheer ku socday. duufaanta ayaa waxa ay keentay dabaylo markaa la sheegay inay mitir ahaan ay jarayso halkii jeer 240 kilomitir oo markaa isku weer ah markii ay dhulka ku soo dhacday. waxaana dadka gobolkaasi lagula taliyay inay raadsadaan meelo ay kaga gambadaan duufaanta dabaylaha xoogan wadata. hal qof ayaa ku dhintay dabaylaha kadib markii uu geed ku soo dhacay gurigooda oo ku yaala kaniisada lagu magacaabo Association ee markaa Botaroga markaa ku taala. madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ninka lagu magacaabo Joe Biden ayaa sheegay in duufaantani IDA ay noqon doonto mid halis gelisa dadka deegaanka iyadoo laga yaabo inay burbur aad u weyn horseedo. dhanka kale haddii aan fiirino Taliban ayaa waxaa la sheegay inay agab military markaa gacanta ku dhigeen. haddii aan fiirino gulufka markaa colaadda markaa ka socota dalka Afghanistan ayaa waxaa la sheegay in Taliban ay markaa la wareegeen caasimada goboleedyo iyo guud ahaan dalka Afghanistan. waxaana markaa la sheegay inay heleen gacanta ku dhigeen
in markaa la sheegay qalab military oo fara badan oo maraykanka militarigiisa markaa uu isticmaali jiray. dowladda maraykanka ayaa markaa walaac xoogan waxa ay ka muujisay hubka iyo qalabka military ee Taliban markaa qabsadeen. dagaalkii iyo howlgalka ka socday bishan ayaa waxaa la sheegay in guusha si lama filaan ay gacanta ugu gashay kooxda Taliban. waxaa markaa la sheegay heliiska gaadiidka dagaalka diyaaradaha noocyada kala duwan iyo hubka xoogan ee Taliban qabsadeen. waxaana markaa la sheegay in markaa sida la xusay diyaaradda ee 39 Super Tucson waxaana diyaaradani la sheegay inay tahay mid fudud oo loogu talagalay sida la sheegay hujuumida amniga weerarka. sida markaa lagu sheegay qiimaha diyaaradani ayaa waxay u dhaxaysaa 20 milyan ilaa 30 milyan oo dollar. UH-60 Black Hawk ayaa waxa marka sida la sheegay diyaarad helicopter oo loo adeegsan karo duqeynta daadgureynta ciidamada iyo qalabka xamuulka. qiimaha diyaaradda noocaas ayaa waxaa markaa lagu sheegay lacagteeda inay dhan tahay 5.9 milyan oo dollar. Scan Eagle Drone oo diyaaradda nooca aan duuliyaha lahayn ayaa markaa waxaa la sheegay in loo adeegsan karo sirdoonka howlaha gurmadka ciidamada go'doosan dhegeysiga. sida la sheegay tashwiishka gelinta qalabka isgaarsiinta ee cadowga. qiimaha ayaa diyaaradani noocaas ayaa waxaa markaa lagu sheegay 3.2 milyan oo dollar. sida dhanka kale MD 530F oo sida markaa la sheegay waa diyaarad helicopter waxaana lagu talagalay sida la sheegay duulista ciidanka lagu daadgureeyo. qiimaha diyaaraddaasi nooceeda ayaa markaa waxaa lagu sheegay 2.4 milyan oo dollar. gaadiidka M151 lagu sheegay markaa Humvee ayaa waxa markaa la sheegay inuu yahay gaadiid gaashaaman oo loogu talagalay inay ciidamada ku dagaalamaan iyadoo gaadiidkani oo babacdhigi karo sida la sheegay noocyada rasaasta hubka culus iyo miinooyinka markaa dhulka lagu aaso. waxaana markaa la sheegay uu gabaad u yahay ciidamada marka ay la dagaalamayaan goobaha halista ay dagaalada markaa ka sameynayaan iyadoo markaa dhex dibaaxa kara sida la sheegay jiha kasta oo dagaal iyo goobaha amiinaysan. qiimaha gaarigani waxaa markaa la sheegay inuu gaaraya lacag dhan 220 milyan oo dollar ayaa markaa lagu sheegay. si kastaba ha ahaatee maraykanka ayaa waxa militariga Afghanistan ay siiyeen sida la sheegay 4.7 oo gaadiid oo M1551 oo Humvee iyadoo markaa Taliban ay la wareegeen kala bargaadiidkaasi sida markaa warbixintan ay sheegayso. waxaa dhanka kale la sheegay in Taliban maanta ay soo magacaabi doonaan magacyada ay soo gudbi doonaan wasiirada markaa Taliban dhawaan markaa ay soo magacaabi doonaan. dhanka kale hogaamiyahooda ayaa maanta markaa meel fagaara ka soo muuqday Taliban. guud ahaan warkii aad kala socoteen Bashiir Page halkaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay markaa laagta iyo sheerta barnaamijka ku qabtaan intaa ku kulli doona warkaana war lamidana waxaan idin leenahay nabadgelyo.